gaashaanbuurta NATO oo lagu baaqay inay la yimaadaan siyaasad ay uga hortagi karaan Shiinaha iyo Ruushka maxkamada ku taal magaalada Gaalkacyo oo xukun dila ku riday in ka badan 10 qof hooyo wiilkeeda uu sanad ka badan ku maqan yahay wadanka Eritrea oo inooga warantay xaaladda uu ku sugan yahay dhibaato badan ay qabaan ay sheegay oo maaragtay la garaacay oo la tumay oo la xabadeeyay oo cadib inta bilaaad la martiyo inta ugu badan ay haysato wax ay xalka gaari karaan aysan jirin kulay tabay Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo naaburo maana cid kale bilaadan suuqayno noo doodaysan hayno dhahay dhibaato aad u badan ay sheegtay mid ka mid ah ganacsatada ku hanti beeshay dabkii xalay ka kacay suuqa Boosaaso oo khasaaraha dabkaas ka dhashay inoo faahfaahiyay alxamdulillah qadar Allah uu wahaa hasiyeeshee dad galabnimadii ama markii ay salaada maqribna aadayay meheradiisu cambarnayd oo raahantii aad u faraxsanaa oo halka alyoomkiisa ka dhacsanayay oo markii ay 4 saac iyo bar habeenimo ahaydna hantidiisa iyo shul beeshay uu yimaado qof walba saameyn gaar ah ay ku yeelanaysaa qodobadaas iyo kuwa kale aad ku maqli doontaan barnaamijkan uu soo saaray Cabdiraxmaan Xaaji Caddo anigu Cabditax Ibraahim Cageerna la socodsiinay balse marka hore barnaamijka waxaanu ku bilaabaynaa wararka caalamka iyo Fartuun Ismaaciil mahadsanid Cabditax hogaamiyaasha NATO ayaa isugu tagaya magaalada Brussels kuwaasi oo halkaasi ku yeelan doona shir bog cusub furi doona ururka sida uu sheegay xogayaha guud ee ururka Jens Stoltenberg ayaa sheegay in mid ka mid ah arrimaha ugu waaweyn ee shirka looga hadli doono ay ka mid noqon doonaan xiriirada la leeyahay Ruushka kuwaasi oo uu sheegay in ay ahaayeen kuwii ugu liitay tan iyo dhamaadkii dagaalkii qabooba taasi oo sabab u ah in Moscow ay sii waday rabshada ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa markaa uu gaaray shirka waxa uu sheegay in hal mawduuc uu doonayay in laga hadlo ay ahayd in dib u habeyn lagu sameeyo isbahaysiga siyaabaha kala duwan aan u rabno inaan u casriyeyno NATO waxaa ka mid ah inaan taageerno mashruuca wanaagsan ee sanadka 2030 ee uu wada xogayaha ururka Jens Stoltenberg kaasoo la jaanqaadayo tallaabada ay UK qaadayso ee ku aadan dib u eegista lagu sameynayo isdhexgalkeena marka NATO waa in la casriyeeyaa NATO waa la casriyeynayaa NATO waxay si xoogan u maalgelinaysaa ka hortagga weerarada internetka maxkamadaynta Aung San Suu Kyi ayaa ka bilaabanaysa caasimadda Myanmar Mrs Suu Kyi waa xukuumadii hogaaminaysay ay meesha ka saareen militariga dalkaasi bishii Febraayo ayaa wajahaysa dacwado badan waxaa lagu hayay oo ay xabsi guri ku ahayd goob aan la ogeyn iyadoo loo ogolaa oo kaliya in si xadidan ay la xiriirto qareenkeeda hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa cambaariyay maxkamadayntan iyagoo ku tilmaamay waa mid wax kama jiraan taasi oo looga gol leeyahay in looga hor istaago haweeneydan 75 jirta ah in shacbiyada leh inay mustaqbalka u tartanto doorasho mid ka mid ah askartii hore ee gaarka ahayd ee Mareykanka iyo wiilkiisa ayaa maxkamadda Tokyo u sheegay in ay caawiyeen madaxii hore ee shirkadda Nissan Carlos Ghosn si uu inuu ka baxsado Japan sanadkii 2019 Michael iyo Peter Taylor ayaa lagu soo eedeeyay in Master Ghosn ay si dhuumaaleysi ah ugu gudbiyeen garoonka diyaaradaha ee Osaka iyagoo ku jira sanduuq weyn oo loogu talagalay qalabka maqalka ugu dambeynna xayiraadaha coronavirus ayaa laga qafiifiyay dhowr gobol oo kale oo ku yaala dalka Talyaaniga goboladaasi ayaa waxaa ka mid ah Rome iyo gobolada ku hareeraysan iyo sidoo kale gobolka Lombardy oo ah halkii uu cudurka uga bilowday dalkaasi bandowgyadii habeenkii ayaan jiri doonin gebi ahaanba waxaan sidoo kale jiri doonin wax xayiraado ah oo saaran xiliyada furitaanka baararka iyo maqaayadaha balse waxaa weli sii jiri doona kala fogaanshaha dadka iyo weji xirka warkiina waa inaga intaa Cabditax aad u mahadsan tahay Fartuun Ismaaciil Axmed ay taasay wararka caalamka ay nala socodsiinaysay dhageystayaal diyaar garooba qaybaha kale barnaamijka aynu ku bilownay sida aad warka caalamkaba ku maqlayseen ka hor shirka maanta ay magaalada Brussels ku yeelanayaan madaxda gaashaanbuurta NATO ayaa xogayaha guud ee bahaysigaasi waxa uu sheegay in mid ka mid ah arrimaha ugu waaweyn ee halkaas la iskula soo qaadi doono ay tahay xiriirka Ruushka kaas oo ku tilmaamay inuu gaaray heerkii ugu hooseeyay tan iyo dhamaadkii dagaalkii qabooba maadaama buu yiri Moscow ay sii wado dandansiga
haddaba dhanka kale hogaanka NATO ayaa la filayaa in ay iyana war ka soo saaraan go'aan cad ka soo saaraan khatarta dhanka Shiinaha dunida uu ku hayo faafahinta warkaasi waxa ay noo hayo haatan isku day gula soo biiray Cabdiraxmaan Xaaji Cadow agayare xogayaha guud gaashaanbuurta NATO Jens Stoltenberg ayaa waxa uu yiri in shirkani maanta la filayo inuu Belgium uga furmo gaashaanbuurta uu yahay mid aad iyo aad muhiim u ah shirkan markii ugu horeysay uu ka soo qayb galayo madaxweynaha Mareykanka Joe Biden tan iyo markii xilka loo doortay heshiiskan waxa uu yiri waxaan ka wada hadli doonaa buu yiri arrinta ugu muhiimsan ee shirkani loo qabanayo ay tahay yiri xogayahaasi isbedelka cimilada iyo mowqifka ay xulafadu ka istaagi lahayd weerarada dhinaca internetka oo baryahan dambe Ruushka lagu eedeeyo iyo waliba Ruushka arrimaha gudihiisa iyo dibadda wadamada Yurub quseeyo oo faragelin uu ku hayo sida wadamada Georgia iyo kuwa lamidka Ukraine sidoo kale kasoo bixitaanka ciidamada Afghanistan ee gaashaanbuurta NATO halkaasi ka joogay iyo faragelinta ay sheegeen in uu haatan ku hayo dhaqaale ahaan iyo military ahaanba Shiinaha arrimahaas ayaa looga wada hadlaya ayuu yiri waxaana sidoo kale xogayaha dhinaca amniga kala taliya dhinaca amniga aqalka cad ee Mareykanka Jake Sullivan waxa uu sheegay in xoog lagu saari doono ama ahmiyadda gaar la siin doono sidii Shiinaha awoodiisa military haatan dunida ku soo shaabaxday ama soo xoogeysanayso wax looga qaban lahaa xulafaduna aragti midaysan ay uga qaadan lahayd gaashaanbuurtan Cabdi Fataax waxa marka xubinka ah 30 dal oo wadamada Yurub ka tirsan iyo waliba waqooyiga Mareykanka waxaana la aasaasay dagaalkii labaad ee adduunka xilliga markaasi ay jirtay midowgii Soviet ee burburtay aad baad u mahadsantahay Cabdiraxmaan Xaaji Cadow ayuu kaasi faafahinta warkaasi nala socodsiinayay markana aynu tagna dhanka iyo magaalada Gaalkacyo halkaas oo maxkamad ku taal magaaladaasi dhinaca maamulka Puntland ay xukun dil ku riday 17 qof oo loo haystay in ay dad ku laayeen magaaladaasi Gaalkacyo iyagoo lagu eedeeyay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab hal nin oo kale oo dacwadeedkaasi ku helinay raggaasi ayaa isna lagu xukumay xabsi daa'in dadkan la xukumayna waxay noqonayaan eedeysanayaashii ugu badnaa oo maxkamad ku taal Puntland ay mar qura dil ku xukunto Axmed Caawil ayaa faafahinta warkan goorweyd ka soo diray magaalada Garowe raggan maanta lagu xukumay magaalada Gaalkacyo waxa ay gaarayaan ilaa iyo 17 kamida ayaa dil toogasho lagu xukumay halka midka kalena lagu xukumay xabsi daa'in waxay ku eedeysan yihiin in magaalada Gaalkacyo iyo guud ahaan Puntland ay ku laayeen dad aad u tiro badan Al-Shabaab ayay ku eedeysan yihiin raggan gaaraya ilaa iyo 18 ruux waxaana la sheegay in magaalada Gaalkacyo iyo Puntland ay ku dileen ilaa iyo dad gaaraya 300 oo qof oo dadkaasna waxa ku jira dad indhergarada iyo waliba saraakiil ciidan oo maalmihii sanadadii aynu soo dhaafnay lagu dilay Gaalkacyo iyo meelo kale oo Puntland kamida 13 sano ee la soo dhaafay ayay ku eedeysnaayeen raggan inay dilalka ay ka fulin jireen Puntland gaar ahaan magaalada Gaalkacyo saraakiisha ciidamada Puntland iyo maxkamadda waxa ay sheegeen shabakadan in ay dhowr qaybood ay isku jireen oo ururka Al-Shabaab oo adeega isla markaasna ay dilal kala duwan ay ka geysan jireen Gaalkacyo waxaana la socotaan in Gaalkacyo lagu laayay dad badan oo indhergarad ahaa isla markaasna siyaabo kala duwan ay u sheegteen ururka Al-Shabaab marar badan hase yeeshee waxa muuqatay in maalmihii ugu dambeysay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee gobolka Mudug ay soo bandhigaysay raggan Al-Shabaab ku eedeysan isla markaasna xukumadoodu ay u badnaayeen in dil lagu fuliyo marka waxay noqonaysaa tiradii ugu badneed oo guud ahaan Puntland mar qura la arko in dil toogasho lagu xukumo oo ururka Al-Shabaab ka tirsan Axmed Caawil aad ayuu mahadsan yahay wixii warkaasi ka soo korana waan idin la socodsiin doonaa mabartina internetka ee bbcsomali.com ayaad ka eegi kartaan hase yeeshee markan qaar ka mid ah waalidiinta ay ka maqan yihiin carruur ay sheegeen in dawladda Soomaaliya ay tababar ciidan dibadda ugu qaaday ayaa sheegay inay wajahayaan walwal aan dhamaad lahayn waalidiintaas oo qaarkood BBC-da u waramay ayaa sheegay in carruurtooda oo ay khadka taleefanka dhowr jeer kula xiriireen ay u sheegeen in ay ku tabaalaysan yihiin waddanka Eritrea arrintan ayaa imanaysa kadib markii dhawaan ay soo baxeen warar sheegaya in askar Soomaali ah oo tababar la sheegay loo geeyay waddanka Eritrea ay ka qayb qaateen dagaalka ka soconaya gobolka Tigray waddanka Itoobiya arrintaas oo ay dawladda Soomaaliya gaashanka u daruurtay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ay hadaba cabashadaasi kadib waxa uu saaray guddi kaas oo sheegay in hawshiisa uu bilaabay haatanna ay la kulmayaan waalidiinta hase yeeshee midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa dalbaday in wax laga bedelo guddigaas maadaama ay ku eedeeyeen xubno ka tirsan inay arrintaasi ku lug leeyihiin haddaba hooyo Foos Xasan waalidiintaas ayay ka mid tahay khadka taleefanka ay ugu warantay
wiil ayaa iga maqan sanadkii wuxuu iga batay 2020 bishii labaad maalinta ay 17 ahayd waxaa hadalkiisa igu horeeyay sanadkan 2021 bishii koowaad wuxuu igu sheegay inuu joogo Electria ilaa dhibaato badan inay qabaan ii sheegay oo maaragtay la garaacay oo la tumay oo la xabadeeyay waxaan weydiiyey meesha inay rajilayeen soo bixitaankooda hadda dhowr mar oo ila soo hadla laakiin mar walba ma soo sheego wax oo macnaha faa'iido oo hadda kasoo socoto kulay taba ilaahay subxaanahu watacaala oo na abuuro maana cid kaloo bini-aadan sugayno noo doodaysa mahaynu dhahay dhibaato aad u badan ay sheegtay marka alle subxaanahu watacaala marka hore waxaan ka baryaynaa in ilaahay subxaanahu watacaala noo soo aruuriyo tan labaad ma hayno dowladna soo doonta iyo wax noo doodo midna ma hayno marka ugu dambeysay uu soo gabagabeeyay dhibaatada ay qabaan aad u badan wiilkaaga goormaa kuugu horreysay oo uu kula soo xiriiray sanadkan hadda aan ku jirno bishii koowaad 2020 bishii koowaad markaas muxuu kuu sheegay dhibaato aad u badan inay qabaan dad badanna ay dhinteen 7 ruuxna aan nolosha macnaha ay ku dhinteen xabado la xabadeeyay darteed saada u adkaysa weyne uu dhahay waan banaan baxnay marka aan banaan baxnay waana la garaacay ulaana lagu garaacay ibiro markaa iska difaacnana xabadaana lagu furay xabadihii waxay naga dileen uu dhahay 7 wiil arrintaas goormay dhacday buu leeyahay bishii 9aad 14keedii 2020 oo 2020 bishii 9aad 14keedii dhacdo dhamaankii 14 heedeeda dhax sideed ku ogaatay adiga in wiilkaaga la geeyay Eritrea aniga meel uu jiro ma garanaynin lambar ii soo baaqay lambarka markuu ii soo baaqay macnaha qof baadi ka maqan tahay oo dad nool ka maqan yihiin oo intaas aan nolol iyo geeri toona ku sheegin una dambeysay subaxaasi oo ilada ka baxay marka oo aanu joogin xataa uu ka tagay guriga laakiin inuu meel aaday meeshuu aadan uusan sheegin oo ciyaalka u sheego dhan meelaan u socdaa anaana soo imaan doono hadduu alla yidhaah hooyana wiilkaad meel u aada dhaha meeshana uu sheegi diiday waa markii ciidamada uu qoranayay miya markuu baxay subaxii u dambeysay uu tagay uu teleefanadiisa inta kala dhiibay wuxuu dhahay meelaan u socdaa oo aan danka leeyahay insha allahu tacaala waan imaan doonaa haddaan noolahay haddaan dhintan allah ii naxariista hooyan u sheega inaan meel aado meeshana uu sheegi diiday markii dambe markii teleefanka lagaa soo falaashay oo aad ku celisay yaad ogaatay inuu wiilkaaga yahay waa kuwa ku celshay inaan niyada iska dhahay wiilkaaga rumayaan lacag ku shubo waa wacay lacagta banaanka ku shubo markaan waxaan wuxuu dhahay hooy aniga waaye waa noolahay waxaan joogaa Electria rafaad inta aan soo marnay isweydiis ma lahan laakiin hadda alxamdulilah nafta waa nagu jirtaa intaas waxaan inuu sheegi karno ma lahan dhahay waxaa idin gaaray aan dhahay aadan u rafaadsanahay qaarkeenna waa dhintay qaarkeenna waa dhaawac oo weli xataa yaala teendhooyinkay dhex yaaleen meelaha waabaha noo dhisan oo daawo beebeen layska marsiyaa annagana wuxuu aadan u rafaad qabnaa kuwa dhintay iyo kuwa dhaawaca maxaa sabay dhimashadooda iyo dhaawacooda kuu sheegay waa banaan baxnay oo dhahay markaan banaan baxno aan dhahnay meeshaan mana anfacday ana laga wada dalkeen noo dira waxba idinma faa'iideynay ulaana lagu tumo weli iyo biro iyo waxbay nagu garaaceen waa iska difaacno dhahay 900 oo xal xiro ku jirta ahaynu dhahay anaga markaan iska difaacnay waxay soo qaateen oo dhahay xabadiyo nagu bilaabay maadaama ay xoor ul nooga adkaa waayeen iyo bir wiilkaaga marka intaad la hadlaysay muu kuu sheegay wax dagaala oo la geliyey oo ka baxsan tababarkii ay qaadanayeen may ima sheegin waa weydiiyey ciidamada la qaaday ma jiraan dhaa waa xilligaas ciidamada la qaaday lasoo sheegayo dhaha dad baa dhintay ahaayeen wuxuu dhaha anaga khaasatan 900 aanoo dhaa inta xeradan ku jirto qofna lagama qaadin xataa ma maqalno dhaha meel wax laga qaado laakiin anaga xerada gudaheedana lagu dilo dhaha hadda ra-iisul wasaaraha Soomaaliya wuxuu qabtay guddi soo baara arrintaas maxaad guddigaas ka rajaynaysaan la aniga shakhsi ahaan ka waarid ahaan dadka qof ra'yi ku jirta laakiin waxaan dhihi lahaa ra-iisul wasaaraha wax uusan sameyn karin uusan dood ka saaranina arrintaas guddi iyadoo loo bixin si toos ah sida hadda wax noo qaban raba uu aaday ee warbixin cad naga soo siiyo asiga hadda meesha u xil saaran guddigan hadda waa la dooranaa la leeyahay aniga aslanba u haay inay wax raja noo haayaan waxaan u maleeyaa inay yeerano si dabcalinayaan isleeyeen in yaha amasaano wax kaloo natiijo ma u maleynaa in la yeelayo taasi waxay ahayd hooyo Foos Xasan oo khadka teleefanka igu waramaysa saacaduna haatan waxay tilmaamaysaa 2 duurnimo 14 daqiiqo iyo 15 ilbiriqsi waqtiga bariga Afrika wararka ciyaaraha ayaa inoo soo socda balse markan faahfaahin dheeraad ah waxay ka soo baxaysaa dab khasaare lixaad la geystay oo xalay ka kacay suuqa weyn ee magaalada Boosaaso halkaas oo meherado badan ay ku basbeeleen ganacsiyo badan oo aanan weli si rasmi ah loo qiimeyn dhibaatada soo gaartay ayaa halkaas ku gubtay maamulka gobolka Barina waxa uu ballan qaaday in laga shaqeyn doono sidii aanay arrintaasi mar kale u soo laaban Axmed Maxamed Cabdiraxmaan waxa uu ka mid yahay dadka hantidoodii halkaas ku waayay khadka teleefanka ayuu ugu warramay anigu mar ay tahay 45 daqiiqo habeenimo ayaan gurigeyga anigoo hurda markaa indhaha aanan seexan laakiin soo jeeda ayaa la soo wacay kadib wax lay sheegay suuqu inuu gubtay isla markaas marka fariintaasi soo gaadhay suuqu inuu gubtay si
dhaqdhaqsi oo degsiimo ku jirto ayaan u soo baxay oo xagga suuqa u soo aaday kadib waxaan la kulmay holo aad u baxaya iyo meheradaydii oo aan si toosa isla markiiba usoo abaaray kadib meheradaydii markii aan imi waxaan dareemay meheradaydu xaaladeedu inay aad u adag tahay holac badanna aad agteeda uga baxayo marka laba meheradaydu laba albaab ayay lahayd labada albaab kan xagga bidixda xiga runtii holac badan baa ka baxayay kan midigta ayaan isku dayay inaan furo waan furay kadib waxaan damcay inaan meherada gudaha u galo kadib waxaa aada iga horyimi qaac iyo olol aad u tan badan naftu way isiin weyday inaan madaxa geliyo kadib dib ayaan uga soo noqday wax aad ka soo badbaadisay marka dukaankaagii maadaama isagoo gubanayaad u tagtay wallaahi dukaankaygii isagoo gubanaya markii aan u tegey nin hantidiisii gubanayso marka hore wuxuu isku dayayaa bal inuu wuxuun gacanta la helo oo la soo baxo laakiin qadar allah bay ahayd way ii suurtageli weydey inaan meheradaydii shayba ahaatee inaan horey uga soo qaato laakiin nafteeda ayaan uga baqay inaan mataqaana wax ka soo qaado tamarta ayaa ma laguu sheegay markaad meesha tagtay dabkan waxa uu sababsaday iyo qaabka ku bilowdayba wallaahi dee markii hore cidna maana waraysan maadaama aan dee xaalad iskaga jiray laakiin markii aan arkay meheradaydana ka samray oo xaaladu dee dad ila mid ah oo agteedii jooga oo asxaab ahayn oo aan saaxiib ahayn oo aan deris ahayn ay sidoo kale ku dhacday haddaan wax isweydiinay oo dib wax isu weydiinay run ahaantii dabkani siduu ku yimi sida uu ku bilowday maxaa sababay isweydiinay sida aanu mataqaana dadka ay noo sheegeen waxay yidhaahdeen dabkani wuxuu ka bilowday koronto shoor qarxay ayuu ka bilowday adiga shakhsiyan hantida halkaa kaaga gubatay meeqaad ku qiyaasi lahayd wallaahi hantida halkaa iga gubatay haddii aan qiyaaso markaan hantida dhex taallay iyo kharashaadkeeda ashkaado lacag 20 kun ayaan ku qiyaasaya baysanba ka badnayn dadka dukaamada kugu dhegan lahaana iyana sidaas oo kale miyaa waa la kala hooseeyey dad aniga ahaa inta badan dee ila mid bay ahaayeen oo meherada saas oo kale u camiran oo mataqaanaaye wax walba ay meheradaha u yaalin bay ahayd dadku way jireen dad xoogaa naga hooseeyey oo walata oo sida miisaska oo kale lahaa hase yeeshee xaaladu dee qof walba waxay u ahayd meeshii ugu sarreysay allah kuu bogadhay adiga iyo inta kale ee dhibaatada ay dabka ka soo gaartay marka ma qiyaasteen dhibaatada intay la eg tahay iyo dabkan dadka uu saameeyey intay la eg yihiin wallaahi dee markaad fiiriso dabkani dhibaatadu geystay aad buu run ahaantii u baaxad weynaa alxamdulilah qadar allah unbuu ahaa hase yeeshee dee dad galabnimadii ama markii ay salaada maqrib la aadayey meheradiisu camirnayd oo run ahaantii aad u faraxsanaa oo halkaa dee alyoomkiisa ka dhacsanayey oo markii ay 4 saac iyo bar habeenimo ahaydna hantidiisi iyo shul beeshay u yimaado dee qof walba saameyn gaara ayay ku yeelanaysaa dee run ahaantii markii la qiyaaso dhibaatada intay la eg tahayna run ahaantii dee qofba meel bay u joogtaa qof baaba waxbaba u harin oo wuxuu maanta dabka u shitab ahayn qof baa xoogaa ordi kara marka dee kollay qadar allah un bay ahayd qof walbana meel bay u joogtaa kaas waxa uu ahaa axmed maxamed cabdiraxmaan axmed faras oo ka mid a ganacsadii halkaasi dabka ku hanti waayey oo khadka taleefonka igu warramaya dhanka kale isla khadka taleefonka ee magaalada boosaaso ayaa waxaan kula xiriiray cabdisamed yuusuf maxamed abwaan gudoomiyaha gobolka bari dabku horta khasaara xoogan uu geystay sababtoo waad garan kartaa masaafada ilaa saafo 100 mitir bay ku fadhiyaan dhulka uu geystay khasaaraha rasmiga uu geystay guddiyaan u magacawnay ganacsiga iyo wasaaradda ganacsiga hogaaminaysa dowladda hoosena guddi baa jira isaguna hawsha ku howlan iyo guddi kaleeto booliska oo baaritaan samayn doona wixii dabka dhaliyey oo baaritaan rasmiga isagana soo saari doona u dhameeya marka intaas markii soo baxdaan khasaaraha rasmiga ogaan karnaa laakiin khasaare fiican buu geystay aan isleeyahay ilaa 60 meheeradood ama dukaan inuu baabi'iyey xalay 4 baa igu dambeysay laakiin dib u booqday khasaaruhu ma yara walow aad guddiyo u saarteen haddana ma ognahay waxa kiciyey dabkaas abu koronta keesay taa hor dhac baan ku haynaa in koronto keesay laakiin baaritaanka rasmiga waa lagu jira uuna soo bixi doonaa hadduu alla magaalada Soomaalihan dabdamis maxaa keenay in dabkaas markuu kacayba aanan la xakamayn dabdamis waa leedahay dabdamiso weliba fiican bay leedahay inkastoo haddee aad garanayso oo dee heerkii loogu talagalay ama wadamada dee horumaray aanan gaarsiisnayn laakiin waxaan isleenahay in nagu filan waanu haysanaa ama dowladda hoose ha noqoto ama hay-adaha kala duwan ee ciidamada iyo magaranaysa ganacsatada waaweyn ha noqoto qaybtood runtiina dee aad baa loo howlgalay si hagar la-aana hadday noqoto dowladda hadday noqoto ciidamada kala duwan ee dowladda hadday noqoto dowladda hoose hadday noqoto shacabka oo runtii booyadaha iyo keenayey
waanan qabaa in wakti fiican oo 2 saac gudihiisa lagu damiyey dabkaas oo ah dab xoogan weliba aad ogtahay boosaaso xilliga xagaaga lagu jiro xilligan oo ay dhacdo dabaysha loo yaqaan fooraha marka waxaan aaminsanahay sidii ugu fiicnayd in looga howlgalay dad badan baa halkaas ku hanti waayey marka dadkaas maxaad u qabanaysaa waanu ku howlanahay gudiyadaas shaqadeeda ku jira hadda shirka u dambeeyay baan ka soo baxnay dhowr qodob baan ka soo saaray waxa kamid ah mustaqbalka sida arrinta looga gaashaaman lahaa oo aan u sameeyno tuubooyin iyo haamo suuqa dhexdiisa in wadooyinkii oo ciriira inaan wadooyinka furno dadka maslaxadoodana ay ku jidho inaan u yeero shirkadaha korontada oo aanu xarkaha badanaa isdul fuulayo oo korontada aanu mustaqbalka wax laga qabto waxaa kamid ah dadka dhibaatada soo gaadhay sidii wax loogu qaban lahaa oo aan insha allahu rugta ganacsiga iyo culimada iyo kullu iyo dowladda baan la kaashan doono hadduu ilaahay kaasi waxa uu ahaa cabdisamed yuusuf maxamed oo ku magac dheer abwaan oo ah gudoomiyaha gobolka bari ee puntland oo khadka taleefanka igu warramaya markana ciyaarihii aan eego waxaa soconaya weli oo qaaradda yurub si habsame looga soconaya koobka euro 2020 caawan waxaa dhici doona kulamo ka tirsan tartankaasi scotland waxay ka hortagaysaa Czech Republic Poland iyo Slovakia oo ay wada ballansan yihiin halka Spain iyo Sweden ay ciyaar adag dhex mari doonto kulamadii xalay dhacayna Austria ayaa waxay 3 isaga reebtay North Macedonia Netherlandsna waxa ay 3-2 dirtay Ukraine halka Ingiriiska oo 1-0 isaga reebay xulka wadanka Croatia waa tahay markana barnaamijkii baafinta waxaa si wada jira stuudiyaha BBC-da ee magaalada Nairobi idinkaga soo tabinaya anigoo ah Caasha Saciid Xasan iyo Faisal Bishaar Aligo hay Aligo mahadsanid Caasha baafinta ugu horeysana maanta waxay naga soo gaartay Cumar Cali Raage oo jooga beledweyne waxa uu baafinayaa Abuukar Cali Raage waxa uu ugu dambeysay isagoo ku sugan Qaahira Masar sanadii 2009 hadaba hadii uu maqlayo Abuukar Cali Raage ama bay jirto cid garanayso fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Cumar Cali Raage ayadoo wixii wara loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha casay ku leedahay beledweyne Maryan Ibrahim Cabdi oo joogto Muqdisho waxay baafinaysaa Zainab Yacquub waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Yemen 2016 hadaba hadii ay maqlayso Zainab Yacquub ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Maryan Ibrahim iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Garowe Safiya Maxamed Cilmi oo joogto beledweyne waxay baafinaysaa Saara Maxamed Cilmi waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Malta sanadii 2013 hadaba hadii ay maqlayso Saara Maxamed Cilmi ama bay jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Safiya Maxamed Cilmi ayadoo wixii wara loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay beledweyne Madiina Diiriye Xirsi oo joogto Muqdisho waxay baafinaysaa Cali Maxamed Xaaji waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Talyaaniga 2017 hadaba hadii uu maqlayo Cali Maxamuud Xaaji ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Madiina Diiriye ayadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Muqdisho Axmed Muuse Xirsi oo jooga Boosaaso waxa uu baafinayaa Xamdan Muuse Xirsi waxa ugu wardambeysay ayadoo ku sugan Suudaan sanadii 2014 hadaba hadii ay maqlayso Xamdan Muuse Xirsi ama bay jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Axmed Muuse Xirsi ayadoo wixii wara loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Boosaaso Zainab Ibrahim Aadan oo joogto Muqdisho waxay baafinaysaa Axmed Madey waxa ugu wardambeysay sanadkii 1992 hadaba hadii uu maqlayo Axmed Madey ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Zainab Ibrahim ayadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Guure Cali oo jooga beledweyne waxa uu baafinayaa Jees Guure Cali waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Kenya sanadii 2001 hadaba hadii uu maqlayo Jees Guure Cali ama bay jirto cid garanayso fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Cabdulqaadir Guure Cali ayadoo wixii wara loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay beledweyne Carfoon Bilal Nuur oo joogto Muqdisho waxay baafinaysaa Farduuso Bilal Nuur waxa ugu wardambeysay sanadkii 2018 hadaba hadii ay maqlayso Farduuso Bilal ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Carfoon Bilal ayadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Muqdisho Cabdi Cali Warsame oo jooga Boosaaso waxa uu baafinayaa Kaysi Cabdiraxmaan Warsame waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Yemen sanadii 2018 hadaba hadii uu maqlayo Kaysi Cabdiraxmaan Warsame ama bay jirto cid garanayso fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Cabdi Cali Warsame ayadoo wixii wara loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Boosaaso Malyuun Axmed Jaamac oo joogto Muqdisho waxay baafinaysaa
dahabo axmed waxaa ugu wardambeysay sanadkii 1990 haddaba haddii ayna maqlayso dahabo axmed amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo malyuun axmed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay muqdisho. xaliimo cabdulaahi muuse oo joogta boosaaso waxay baafinaysaa cabdulaahi muuse cabdi yoome waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Kenya sanadii 1996 haddaba haddii uu maqlayo cabdulaahi muuse cabdi yoome amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa hala gaarsiiyo xaliimo cabdulaahi muuse iyadoo wixii waraa loo sii marsin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay boosaaso. saafi cali oo joogto muqdisho waxay baafinaysaa faadumo cali barre waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Yemen 2005 haddaba haddii ayna maqlayso faadumo cali barre amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo saafi cali iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay muqdisho. aamine maxamed ismaaciil oo joogta boosaaso waxay baafinaysaa zaynab maxamed ismaaciil waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Yemen haddaba haddii ayna maqlayso zaynab maxamed ismaaciil amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo aamine maxamed ismaaciil iyadoo wixii waraa loo sii marsin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay boosaaso. iido aadan xuseen oo joogta muqdisho waxay baafinaysaa xasan barrow waxaa ugu wardambeysay sanadkii 1991 haddaba haddii uuna maqlayo xasan barrow amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo iida aadan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay muqdisho. canab maxamed xaashi oo joogta boosaaso waxay baafinaysaa dadka kale ah cabdulaahi maxamed cabdulaahi xabiibo maxamed cabdulaahi waxaa ugu wardambeysay ayagoo ku sugan Canada sanadii 2016 haddaba haddii ayna maqlayaan cabdulaahi maxamed cabdulaahi iyo xabiibo maxamed cabdulaahi amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkooda hala gaarsiiyo canab maxamed xaashi iyadoo wixii waraa loo sii marsin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay boosaaso. iida cali talas oo joogta muqdisho waxay baafinaysaa barqash cusmaan waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Kenya 1993 haddaba haddii uu maqlayo barqash cusmaan amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo iido cali iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay muqdisho. hindo aruus maxamed oo joogta boosaaso waxay baafinaysaa maxamed aruus maxamed waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Yemen sanadii 2015 haddaba haddii uu maqlayo maxamed aruus maxamed amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa hala gaarsiiyo hindo aruus maxamed iyadoo wixii waraa loo sii marsin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay boosaaso. cali daahir macalin oo joogo muqdisho waxa uu baafinayaa mayow salaad waxaa ugu wardambeysay sanadkii 1990 haddaba haddii uuna maqlayo mayow salaad amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo cali daahir iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay muqdisho. aaniso ibraahim sheekh cali oo joogta muqdisho waxay baafinaysaa fartuun bashiir hursi waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Jabuuti sanadii 1990 haddaba haddii ayna maqlayso fartuun bashiir hursi amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo aaniso ibraahim sheekh cali iyadoo wixii waraa loo sii marsin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay boosaaso. xaawo maxamed oo joogto muqdisho waxay baafinaysaa muuse maxamed waxaa ugu wardambeysay sanadkii 1992 haddaba haddii uuna maqlayo muuse maxamed amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo xaawo maxamed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay muqdisho. qadro cabdulqaadir xuseen oo joogta boosaaso waxay baafinaysaa faadimo cabdulqaadir xuseen waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Xudayda Yemen sanadii 2009 haddaba haddii ayna maqlayso faadimo cabdulqaadir xuseen amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo qadro cabdulqaadir xuseen iyadoo wixii waraa loo sii marsin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay boosaaso. muumow liibaan xasan oo jooga muqdisho waxa uu baafinayaa xaliime isaaq waxaa ugu wardambeysay sanadkii 1999 haddaba haddii ayna maqlayso xaliime isaaq amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo muumow liibaan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay muqdisho. siciid maxamed samatar oo joogo boosaaso waxa uu baafinayaa bashiir maxamed samatar waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Yemen sanadii 2018 haddaba haddii uu maqlayo bashiir maxamed samatar amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa hala gaarsiiyo siciid maxamed samatar iyadoo wixii waraa loo sii marsin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay boosaaso. simar khaasim oo joogto muqdisho waxay baafinaysaa bashiir khaasim waxaa ugu wardambeysay sanadkii 1990 haddaba haddii uuna maqlayo bashiir khaasim amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo simar khaasim iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay muqdisho.
baafinta ugu dambeysana maanta waxay naga soo gaartay Casiise Xaaji Cali Maxamed oo joogto Muqdisho waxay baafinaysaa Maslaxo Duuliye Cali waxa ugu hordambeysay iyadoo ku sugan Talyaaniga sanadii 1999 haddaba haddii ay maqlayso Maslaxo Duuliye Cali ama bay jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Casiise Xaaji Cali Maxamed iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Boosaaso baafintiina maanta waa naga intaa faysal bishaar ligo iyo caashaad bay u mahadsan yihiin barnaamijkii baafinta ay nala socodsiinayeen anigana waxaan intaa ku soo gabagabeynayaa idaacaddii duhurnimo uu soo saaray cabdiraxmaan xaaji cabdow anigoo cabdi ibraahim cageerna la socodsiinayay mubaarak cabdallan oo noo farsameynayay cidii barnaamijkan dhaafay waxaad dib uga daalan kartaa barteena internetka ee bbcsomali.com